maanta oo inoogu furmay muhiimadiisana uu yahay mise sababta aan u qaban in ururka warbaahinta aan u qabano oo ku salaysan doorka warbaahinta nabadda iyo dawlad wanaagga peace building, the role of media in peace building, kuwa dawladda iyo kuwa ururada madaxa bannaan. sidoo kalena tababarkan wuxuu socon doonaa 2 maalmood waxaana lagu casuumay ilaa 40 qof oo ah kuwa dawladda iyo kuwa maartay madaxa bannaan. dawlad goboleedka Jubbaland mas'uuliyadda ka saarantay inay u sameeyso capacity building ama tayeen tacliin lagu tayeenayo shaqadooda. wafti ka socota wasaaradda gargaarka iyo mas'uuliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya halkaan oo aan shir ku wada yeelanay wada tashi ah waxaanu ka wada hadalnay qaabkii isku xiriir loo sameyn lahaa guddi ka wada shaqeeyo arrimaha mas'uuliyadda soo noqnoqday inta badan mas'uuliyadkaas oo qaar ka mid ay dibiciyeen qaarna aysan ahayn run ahaantii waxaan aad uga wada hadalnay qaabkii aan la wada shaqeyn lahayn wasaaradda federaalka ee mas'uuliyadda iyo gargaarka iyo wasaaradaha dawlad goboleedyada quseeyo iyo sidoo kale hay'adaha aan dawliga ahayn waxaa jirtay siyaasad qaran ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo golaha wasiirada lagu soo ansixiyay siyaasaddaas waxaa soo diyaariyay wasaaradda gargaarka ee federaalka waana soo ansaxday Jubbalandna waxay ka mid tahay meelaha laga dhaqan gelin doono ee loo baahan yahay in laga sameeyo guddi qaran samafal iyo maxalliga arrimaha gargaarka ka qayb qaato. kulankan aad ugu magac bixiseen madasha looga hadlayo tacadiga jinsiga ee loo geysanayo gabdhaha qaas ahaan goobaha shaqada run ahaantii waa kulan aad iyo aad muhiim ah oo loo baahnaa in xilli hore la qabto waana tilaabo muhiim ah ay hablaha Soomaaliyeed ay qaadeen waayo wax walba oo guul laga gaaro mar un baa lagu tilaabsadaa marka maanta waxaan filayaa inay noqonayso tilaabo taariikhi ah sidaan ognahayna gabdhaha waxay kaalin muhiim ka qaataan arrimaha bulshada
waxyaalo fara badan iska jiraan in laga saxiib baahiyin haddana ay meesha ka marneen dadka warbaahinta ka shaqeeya dowladgoboleedka Jubbaland wasaaraduna ay markhaati ka tahay dadkii iyo macallimiinta aawulayna ay ayagan ogaadeen in saxiibinta Jubbaland ay yihiin dad tacliin sare leh balse iska jiraan caqabado yaryar oo la xiriira qaabkii sare loo qaadi lahaa runaatii tababarkan wuxuu noqon doonaa mid la sii wado wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda Jubbaland waxay u ballan qaadaysaa iyadoo kaashanaysa hay'adaha daneynaya inay warbaahinta kor u qaadaan inay sii wadaan tababarada noocan oo kale runaatii ma ahan tababar tacliin keliya kor u qaadaya waa tababar isdhexgal iyo nabad iyo sidoo kale inay ururada naftirkooda ay qalbi wanaagsan isugu imaadaan ay ogaadaan inay yihiin dad u haya shaqo qaran dadka muddo qabo waxay tihiin bulshada dadka ugu muhiimsan ee loogu talagalay in ay ka bilaabmata nabadeynta iyo dib u dhiska dalka iyo dib u dhiska qaranka waxaana muuqatay muddada koobneed ee aan tababarkan ku jirnay in aad ugu baahnadeen tacliintan waxaana rabaa inaan kula dardaarmo wixii maanta laga bartay shalay iyo maanta tababarkan inoo socday casharada aan ka qaadanay iyo qaabka idinka aad fikradiin usoo dhiibateen runaantii waxay ahaayeen mid iswaafaqsan waxaana rabnaa markaa wixii aad ka barteen meeshaan inay noqdaan qaabkii aad ugu adeegi lahaydeen bulshada